Sanado ayaa sii dhaafay, Asako caafimaadkeeda wuu bilaabay inuu hoos u dhaco. Yuji wuxuu arkay gacmaheeda oo gariiraya markay cabitaanka qaadato, wuxuuna ku baryay inay joojiso. Mar kasta oo uu weydiiyo haddii ay xanuunsan tahay, waxay ku oran jirtay inaysan jiranayn, laakiin Yuji wuu dareemayay in jidhkeedu tabar darnaanayay. Ugu dambeyntii, xaaladdeeda caafimaad waxay sababtay inay shaqo badan ka maqnaato, xitaa mararka qaar telefoonkii way ka jawaabi kari weyday. Sidaas darteed Yuji ayaa shaqooyinkeeda beddelay si uu uga caawiyo. Markii Jib ogaatay arrintaas, waxay Asako ku qaylisay, waxayna ku eedeysay inay Yuji ku qasbayso sidii Oslo uu ku qasbay. Laakiin Yuji ayaa difaacay go'aankiisa, wuxuuna sheegay inuu isaga uun doonayo inuu Asako wax ku maqnaado oo uu mar uun dib ugu gudo celiyo. Jib weli way ka walaacsanayd, balse Asako ayaa ugu dambeyn ku wargelisay Yuji in uu tagayo Maraykanka si uu ugu biiro iskuul ciidan. Markii uu halkaas tegay, wuxuu la kulmay nin weyn oo madow ah oo lagu magacaabo Dani. Dani ayaa ku kaftamay oo ugu yeeray Eugene isagoo u arkay inuu dumar u eg yahay, balse Yuji ayaa saxay isagoo ku yidhi, magacaygu waa Yuji, mana ihi qof daciif ah. Intii tababarka lagu jiray, Dani iyo Yuji waxay noqdeen asxaab, inkastoo ay mararka qaar isku kaftamaan oo isku masxaraan. Intii lagu jiray tababarka, Yuji wuxuu muujiyey xirfado aan caadi ahayn, si gaar ahna wuxuu ku fiicnaa toogashada bartilmaameedka. Taas ayaa keentay in taliyaasha ay ku ammaanaan, iyagoo xusuustay in Asako oo ahayd toogtadii ugu fiicnayd ay ahayd qofka keliya ee sidaas samayn jiray. Habeen dambe, gabadh la yiraahdo Marin ayaa la kulantay Yuji, waxayna ku tiri inay rabto inay kala hadasho. Iyadoo isku muujinaysa, waxay sheegtay inay iyaduna tahay toogtada labaad ee ugu wanaagsan, balse Yuji wuxuu ogaaday inay doonayso kalsooni. Wuxuu ku dhiirigeliyey isagoo ku tusay in aabaheed run u sheegay markii uu ku faanay xirfadiisa, inkastoo ay u malaysay inuu been sheegayay. Tan ayaa sababtay in Marin ay Yuji ku kalsoonaato oo ay u aragto qof ay ku tiirsanaan karto. Markaas kadib, tababarkiisii ayaa dhammaaday, waxaana loo diray imtixaan ku saabsan dagaal dhab ah. Dani ayaa weydiiyey waxa uu ku iibsaday lacagtiisa. Yuji wuxuu u sheegay inuu iibsaday saacad dumar ah oo uu jeclaa. Dani ayaa kaftan xun ku sameeyey Yuji iyo xiriirkiisa Marin, taas oo keentay in Marin ay xanaaqdo oo ku garaacdo. Maalmo kadib, Yuji iyo kooxdiisii ayaa loo diray dagaal dhab ah gudaha keynta. Kooxdiisu waxay ka koobnaayeen dambiile hore, gabar sabool ah oo jirkeeda ku iibsan jirtay, nin waalan oo anime ku tiirsan, iyo toogte aan qof dishi karin. Iyagu waxay ahaayeen kooxda ugu liidata, balse Yuji ayaa isku dayay inuu xoog yeesho. Markii dagaalkii bilaabmay, Yuji wuxuu ku qasbanaaday inuu toogto cadowga, inkastoo uu ka xanaaqay oo matag uu ku dhacay. Taliyihiisu wuxuu ku adkeeyey inuu indhihiisa xiro oo u arko in asxaabtiisu yihiin qoyska keliya ee uu haysto. Markaas ayuu Yuji bilaabay inuu si dhab ah u dagaalamo, isagoo badbaadiyey dhammaan saaxiibadiis. Ugu dambeyntii, Yuji miyir beelay, wuxuuna ku soo toosay isagoo madaxiisa dhigta jilbaha Marlin. Waxay ku tiri, adiga ayaana badbaadiyey, adigana weligeen kuma dayn doono. Sidaas ayuu Yuji ugu sii adkaystay dagaalada, inkastoo saaxiibkiis Dani uu bilaabay inuu fahmo in dagaalku macne badan uusan lahayn. Markii uu dagaalkii dhammaaday, Yuji wuu badbaaday, balse Dani ayaa isku dayay inuu Marin u dhowaado. Iyadu way diiday, waxayna qalbigeeda u hibaysay Yuji, inkastoo uusan la joogin. Markii Yuji dalkiisii ku noqday, Asako ayaa soo dhaweysay iyadoo ku tiri inuu hadda u muuqdo qof weyn oo ka bisil sidii hore. Yuji ayaa u sheegay Asako in markii ugu horreysay noloshiisa uu dareemay farxad keliya markuu iyada wejigeeda arkay. Sanado kadib, Asako caafimaadkeedu wuu sii xumaaday. Markii uu Yuji Spain ku jiray howlgal, Jib ayaa si degdeg ah ugu yeertay inuu guriga ku soo noqdo, sababtoo ah Asako ayaa ku dhacay xaalad halis ah. Dhakhaatiirta waxay sheegeen in jirkeedu aad u tabar daray oo uu dhaawacyo badan iyo daroogooyin ciidan darteed uu aad u liitay. Markii uu Yuji yimid, wuxuu arkay Asako oo sariirta saaran, mararka qaar miyir beelaysa, mararka qaarna si gaaban u soo toosaysa. Asako ayaa gacantiisa qabatay iyadoo ku tiri, waan ka xumahay inaan muddo dheer ka maqnaado. Yuji ayaa wejigiisa ilmadu ka qubatay, wuxuuna ku yidhi, ma dhimanaysaa? Asako ayaa ugu dambayn qirtay iyadoo tiri, haa, waqtigaygii wuu dhammaanayaa. Waan ku beenin jiray, waxaan ku idhi waan noolaan doonaa, laakiin runta waa tan. Yuji wuxuu bilaabay inuu ooyo, isagoo ku qaylinaya, weli wax walba kaama baran, weli waan ku baahanahay. Laakiin Asako ayaa ku dejisay, iyadoo ku tiri, oohinta jooji, nin adag noqo sida aan ku baray. Noloshaydu waxay macno lahayd maxaa yeelay waan ku badbaadiyey, waxaan la noolaa adiga. Taasi waa waxa aan dunida ka rabay. Yuji wuxuu ooyey isagoo leh, adiga ayaad ahayd badbaadadayda keliya, adiga ayaana ii ahayd sababta aan u noolaado. Laakiin Asako waxay ku adkaysatay inay rabto inuu noloshiisa u noolaado isaga dartii. Waxay ku tiri, anigu waan aqbalay dhimashada, balse adiga waxaan rabaa inaad sii noolaato oo aad dagaalanto si aad u noqoto ninka aan mar walba rabay inaad noqoto. Yuji wuxuu ku qayliyey, xitaa haddii Eebe oggolaaday dhimashadaada, anigu waxaan rabaa inaan la dagaalamo isaga si aan kuugu sii haysto. Asako qosol yar ayay ka soo baxday, waxayna ku tiri, ha noqon qof waalan Yuji. Habeenkaas ayay cirka eegaysay iyadoo leh, xidigaha aad buu u qurux badan yihiin. Yuji ayaa isna eegay, wuxuuna yidhi, haa, waa qurux badan yihiin. Asako ayaa xusuusatay markii ugu horreysay ee Yuji la joogay, isagoo kursi fadhiya oo cirka ka ooyaya. Waxay ku weydiisay xilligaas waxa uu ka fikirayay, laakiin Yuji wuu iloobay. Asako qosol yar ayay samaysay, waxayna ku tiri, waan ogaa inaad sidaas ii odhan doonto. Kadib ayay ku tiri, waan daalay, ma seexan karaa? Yuji ayaa ugu jawaabay, haa, waad seexan kartaa. Halkaas ayay Asako indhaha ka qabsatay oo mar dambe dib uma soo toosin. Meydkeeda waxaa qaaday ciidankii Jib, waxaana la gubay. Markii dambena, Jib waxay u sheegtay Yuji in ay ka heleen xabad qori ah oo ku dhex jirta dambaskii Asako, taas oo u muuqatay calaamad u gaar ah oo ay ka tagtay.
toddobaadyadii xigay yuuji wuxuu weli ku fikirayay Asako wuxuuna isweydiinayay haddii mar uun uu kula kulmi doono dhinaca kale laakiin wuxuu go'aansaday inuusan weli dhimanin ilaa uu ka fuliyo ballankii uu la galay Asako ee ahaa inuu badbaadiyo 5 qof laakiin waqti badan ayuu keligiis joogay isagoo sariirta dhulka ku jiifa ilaa Jib ay gurigiisa timid oo si xoog ah u garaacday si uu dib ugu soo noolaado Jib ayaa ka qaaday gurigii Asako oo xusuusteeda ku reebtay waxayna ku casuuntay inuu iyada la joogo si ay isugu taageeraan markii ay wada noolaayeen Jib waxay isku dayday inay xiriir la samayso Yuji waxayna ku tiri waxaad iga codsan kartaa wax kasta Yuji wuxuu ugu jawaabay waxaan rabaa caday ka fiican midka hadda aan isticmaalayo waa jilicsan yahay Jib way yaabtay waxayna ku tiri ma isticmaalaysay cadaygayga Yuji ayaa ku qoslay wuxuuna yiri adigu waxaad afka ku cadaynaysay burushkayga dheer oo adag marka wax dhib ah iguma jiro Jib wuu yaabay waxayna ugu dambayn u iibsatay caday cusub si kastaba ha ahaatee Yuji wuxuu u muuqday mid weli ku xiran Asako taasoo Jib ku dhalisay murugo habeenkii Jib waxay oyday iyadoo leh ma fududa inaan kula joogo maxaa yeelay weli waxaad iigu muuqataa Asako maalmo kadib Jib waxay guriga ku imaan jirtay si aad u yar waxayna noqotay qof ka fog Yuji wuxuu xusuustay ballankii Asako ee ahaa in haddii uu jid cusub arko uu isku dayo inuu maro xitaa haddii uu khalad ku dhaco si uu u barto waxa nolosha ku jira markaas ayuu Yuji go'aansaday inuu safar u baxo isagoo sheegay inuu mar walba ku soo noqon doono wuxuu qaaday mooto Asako ahayd wuxuuna bilaabay safar dheer isagoo dhex maraya roob buuro iyo magaalooyin kala duwan laakiin ugu dambayn wuxuu u laabtay qabuuraha Asako isagoo ku yiri waan ka xumahay waxaan ku soo noqday anigoon waxba fahmin wuxuu qalbigiisa ku yiri in safarkiisu uu wax baray balse uu doonayo inuu mar kale isku dayo inuu noqdo dhalinyaro caadi ah oo iskuul taga markii Yuji go'aansaday inuu isku dayo nolol cusub oo dhalinyaro caadi ah wuxuu joojiyey sheekadii uu uga waramayay Jib wuxuuna helay amar cusub oo ka yimid saraakiisha ciidanka waxaa lagu amray inuu fuliyo howlgal hoos yimaada qodobka 9 howlgal la sheegay inuusan yeelan karin fashil haddii uu diidana loo aqoonsan lahaa khiyaano qaran Yuji wuxuu qaatay qoryihiisa isagoo meel dhulka u jiifsaday oo bartilmaameedkiisa si toos ah ugu jeediyey inta uu halkaas yaallo wuxuu maqlay sanduuq muusig ah oo Asako jeclayd muusigii iyo hadaladii hore ee ku dhiirigelin jiray si uu u noqdo ninka uu maanta yahay wuxuu si cad u xaqiijiyey bartilmaameedka isha qorigii laakiin isla markiiba qalbigiisa ayaa gilgilmay wuxuu garwaaqsaday in howlgalkan uu yahay xaaladii ugu xumayd ee uu abid wajaho waxa uu dareemay in mar kale la hor keenay imtixaan culus oo u dhexeeya noloshiisa cusub iyo raadkii uu Asako uga tegay